jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Jarmalka oo ay wehelinayaan ururka dhalinyarada Heego oo kulan afura ay isugu yimaadeen magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa taageero u muujiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo xukuumaddiisa. xubno ka hadlayay guddida jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Heego oo ka hadlay munaasabadda afurka kadib ayaa si weyn u bogaadiyey madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xukuumaddiisa horumarka ay ka sameeyeen kaabayaasha horumarineed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. sidoo kale waxay fariin digniin u direen cid kasta oo caqabad ku ah horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ku sheegeen inay ka xun yihiin in hore loo sii qaado tallaabooyin horumarineed oo ay ku tallaabsato dowladda deegaanku. idinkoo meel qofkay dhammaantiin waxaan leeyahay Heego ha guulaysato dhammaantiin waan salaamayaa. waxaan ku salaamayaa oo leeyahay oon taageeraynaa xisbiga dowlad deegaanka shacabka Soomaalida Itoobiya ee ugu horeeya mudane Cabdi Maxamuud Cumar. haddaan nahay dhalinyarada Heego ama aan nahay dhalinyarada ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaantoodna waxaan taageersanaa xisbiga waxaan leenahay hore u socdo dib looma soconayo. waxaan si khaas ah u salaamayaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar. haddaan nahay dowladda Heego waxaan aad u taageersanahay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar. haddaan Heeganahay waan garab istaaganahay xukuumadeeda shacabka Soomaalida Itoobiya oon taageersanahay dhammaan Heego oo hormuud ka yahay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar. Allah daayay insha Allah waxaan diyaar u nahay mar walba inaan garab taagnaano horaha u socdaan leena xisbiga. gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Itoobiya ee dalka Jarmalka Injineer Cabdilaahi Geelbeele oo sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xukuumaddiisa kana soo horjeedaan cid kasta oo liddi ku ah horumarka dowladnimada ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya. meelaha fog ka yimid qaarkood weliba ay culus yihiin oo si khaas ah u salaamayo gabadhaan adeerka u ahay Xaliimo Garaad baan si khaas u salaamaya ee safarka dheer ka timid iyo inta kale wehelisa. waxaan leeyahay horta soo dhawaada dhalinyarada sida maxaa dhaca Jarmalka waxaan naadaa Sunrise Machine yani si aan caadi ahayn uga soo qayb galay kulankeena caawa jaaliyadda DDSI dhalinyarada Heego ee jaaliyadda DDSI ay halkan isugu yimaadeen aan ku wada afurnay. ujeedada afurka iyaguna ay tahay haddii banaanka la joogo oo dhalinyarada qurbaha joogta aan nahay iyo kuwii gudaha joogay iyagu goobjooga horumarka xawliga ku socda waddankeena ka jira iyagu goobjooga ka ah intaba waa inaad ku tala gashaan. baalashii waxaan nahay dowlad deegaankeenaan nahay yar iyo weyn. marka waxaan leeyahay dhalinyarada Heego horta iyaga waxaan rabaa inay halkan isu soo taagaan laba saf ay halkan sameeyaan si khaasa iyagoo ay markaa aynu u muujinno iyagoo wada jira fadlan halkan soo istaaga. saasaa wada odhanayna waxa weeyaan dowladdeenu ha noolaato cadowga dalkeena DDSI ha jabo deegaankeenu maanta waxa weeyaan wax hor istaagi kara absolutely ma jirto. waxaan leenahay madaxweyne waxaasoo dhan dheg uma dhigayno sidii horumarka uu markii horeba u socday ayuu maantana u Zakariya Jeelaani, Zab TV, magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.